jaamac xuseen xasan waxaa lagugu eedeynayaa in aad ka tirsan tahay kooxda daacish oo aad u qaabilsanayd qaybta qaraxyada kana soo qayb qaadatay dagaallo ka dhacay buuraha Qandala oo dhex maray dowlad goboleedka Puntland iyo kooxda daacish oo aad ka tirsan tahay kadibna aad u soo wareegtay gobolka Shabeellada Hoose adigoo qayb ka ah koox daacish ah oo loogu talagalay in ay dilal qorshaysan iyo qaraxyo ka fuliyaan magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeellada Hoose. ugu horreynba waxaa loo jeediyay eed ay soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta ee ka koobneed xilliyada uu ku soo qaatay kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo Daacish uu ka tirsanaa ilaa 2013 ka hor inta uusan soo gelin gacanta ciidamada amniga oo la soo qabtay isagoo ku jira aasidda miino meel boodka ka fadhi ay ku leeyihiin bar control ee halka loo yaqaan boodboodka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. taariikhdu markay ahayd 18 bishii afraad sanadkan aynu ku jirno. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa weydiiyay Jaamac Xuseen Xasan jiritaanka dambiyada ay soo jeediyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida in kale. intaasi kadib xafiiska xeer ilaalinta ayaa weydiistay garsoorayaasha in loo ogolaado maxkamadda inay hor keenaan cadeymo ay ka mid yihiin qiraalka eedeysanaha markhaatiyaal ay ka mid yihiin ciidamada amniga degmada Afgooye ee soo qabtay eedeysanaha muuqaalo laga helay gurigiisa sida kaamera ay ku duubi jireen falalka argagixisada ay kooxdu geysato iyo agab dheeraada sida fiilooyin bateriyaal iyo qalab kale oo loo isticmaalo waxyaabaha qarxa. sharaxaadda iyo baaritaanka eedeysanaha waxaa ku dheeraaday gaashaanle Abuukar Weli oo ka tirsan ciidamada amniga gaar ahaan qaybta dambi baarista. gabagabadii baaristeeda waxaa ka soo baxday waxaa ii caddaatay in Jaamac uu yahay nin dambiile ah oo galay dambiga lagu soo eedeeyay oo qarandumis ah iyo dil qorshaysan. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Kabtan Maxamed Cabduqaadir ayaa ka codsaday maxkamadda maadaama eedeysanaha muddo uu ku qanacsanaa daadinta dhiigga ee la mid ah inta uu geystay ay ku fuliso maxkamadda in uu helo Jaamac ciqaabti uu lahay oo ah intuu asaga uu geystay jariimo kaliya oo sharciga wixii uu xeer ilaalinta qodobada iyo aayada Quraanka Kariimka aan soo bandhigna kaliya. xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdullaahi Buule Kame ayaa eedda jeedinta dhankooda ku soo xiray in falka noocan duubista ee kooxdu geysato uu yahay mashruuc uusan ahayn diin waxaana maxkamadda ka codsaday. waa nooc cusub oo ku soo birin saaxadii argagixisada waayo lacag bay dibadda ka sugayaan waxay ku xiran yihiin kooxihii al-Baghdadi iyo Daacishti waaweynaa nimankii khilaafada sheeganayay si ay lacag ku helaan waxay soo saareen nidaam cusub oo ah ninka ay dilayaan inay sawiraan sawirka markay diraan oo ka videoga ayaa lacag loo soo dirayaa sidaa darteed waa dad ka ganacsanaya dhiigga ummadda Soomaaliyeed ka ganacsanaya dhiigga ummadda qofka ay dilaan bay lacag ku rabaan ma aha fakar ma aha diin waa ka ganacsi dhiigga dadka waa ku baalooba Jaamac iyo saaxiibkiis Umar wuxuu qirtay shabaab inuu ku biiray 2013 saddex sano uu shabaab ahaa kadib haddana uu u wareegay niman kaliya Daacish waa barnaamij cusub oo qandaraasa waxaan codsanayaa Jaamac kaliya maaha dilaaga weyn ee saaxiibkiisa aan halkan videoga ka fiirsanay isaga Amiir Buuyaa wala Umar Cabdi Mursal waxaan codsanayaa in la toogto dil toogasha maxkamaddu ku xukunta labadaba. dhanka kale qareenada u doodaya eedeysanaha ayaa ku dooday markii ugu horeysay ay ahayd falkan uu geystay shakhsiga ay difaacayaan isla markaana la soo qabtay isagoo wax dhib ah geysan sidaas darteedna ay codsanayaan in loo naxariisto. waxaan codsanaynaa in Jaamac loo naxariisto naxariis aad u ballaaran loo naxariisto xukunka lagu xukumayna laga qafiifiyo. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda waxa uu u sheegay dhammaan ka qaybgalayaasha in go'aanka ay dib ka soo saari doonaan. Cabdulqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.